Maamo Canab Nuur Macalin waxa ay ku nooshahay guryaha qadiimiga ee ku yaala degmada Xamarweyne ee Muqdisho waana hooyo awlaadeeda uu kaga joogo hal wiil waa dhibane aan awoodin bixinta ijaarka guriga oo dhan $50 sida ay noo sheegtay waxay ahayd hooyo aan meel fadhin sidoo kalena shaqeysa ka hor inta uusan jab soo gaarin lugteeda bidix maadaama ay bishii Maarso ee sanadkan uu gaari jiray ay sababtay in dhowr bil ay jiifto isbitaal bixinta qarashka isbitaalka waxaa dusha saartay deris isxilqaame waxaana sidoo kale bixiyeen dhowr bil lacagta ijaarka si tabarucaad ah inkastoo weli lacag looga leeyahay isbitaalka waxaa jirta in hadda ninka guriga ijaarka uga qaata uu u sheegay in ay ka guurto meel ay aadana aysan aqoon waa macaan aniga magacayga Canab Nuur Macalin la dhahaa Canab Nuur Macalin dhibaatadana igu dhacay 10 bilood ka hor bishaana ay 10 oo maanta saddexda baabuurkii saan yeelan waa iga fakar wax man lay soo qaban isbitaala leeyahay muslimkaana iyo gurmada deriska intaas oo igu baxday haddana deriska wali ahay marxalad xunaan iskaga jira halkaas xun waa ii joog marna ii soo qaraa marna aniga ahay marka dhibaato igu filan waa haysataa kulleeta guriga wallaahi muslimkan daahiri xaaskiisa deriska marcunugeyga waxa ku keen kulleeta dad maanta jikashita iyo waxaas min laakiin wax waa iska cunaa xaaladda shaqaysanay dharan dhaqanay deriskeyga dadka dharka dhaqaa nadaafada hadda marka dhibka igu dhacay nadaafadan ka imid wixii markaas aan ka soo helay wallahi deriska aan si intaas soo socon dhibkaan igu dhacay dadka xataa waa nixin deriska dhan waa soo wada ordeen gurigaan deganahay kirada keena leeyahay kiradina ma awood markasta iga baxaa lay dhahaa marka waxaan sameeyay maqaan kira waxaan ku dhiib meel hadda ii diyaarsan aan degayn mal xamar noocaaway ka baxaysa lacag oo rubiya midka aad degaysan horumar soo rubiya lacag oo rubiya marka dhibkaasna ay haystaa guriga meeqa idinku kureysan yahay $50 lagu kureysan yahay xataa waxa la yidhaa lacagtii 4 bilood aad ku jirtay isbitaalka inaan kontonkan iska sugu daro hada bisha aan ka soo tagna 20 aan ku daray haddana uu leeyahay lacag aad ku daray kontonkii aan faro ku jiro lacagtii lagu darayo saaka igu soo qaatay waxa ibn aadanimo ka bix leeyahay sameey Axmed Xuseen oo loo yaqaan Jaadiro waa wiilka kaliya ee caawiya la jooga u soo shaqeeya inkastoo uusan si joogto ah u helin shaqada wala aniga waa hooyadii dhibkan wuxuu gaaray dhowr bilood ka hor waxay aniga wiil la shaqay waa la joogaa waxa biladkina xaaladiisa iska xun tahay oo shaqay waxalaas ma jiraan saasay tahay nafsada meeshan ku soo sabnaa afla saayada ag jooga wax shaqa ay ma hayo aniga biladkaas iska soo qarabtaa waa imaadaa inkastoo nin ijaarka guriga hadana la dagaalay mar walba uu leeyahay hooyada qaad banaankii alaabteeda u bixi waxaan jeclahay ilaahay xaqiisina ku dhamaadaan Maamo Canab guriga ay ku nooshahay ayaa ah mid burbur xoogan ka muuqdo haddii uu roob da'ana uu biyo soo deynayo Maamo Canab ayaa ka sheekeynaysa laba arin oo aysan ugu dhiiran karin in ay tagto dhakhtarkii kabay in wax la ii qabto isbitaalka birahan igu xiray waa isbitaalkaas Tiririira wixii muslimkayga dhiima hadeer lacag kala nagu dhiman oo leeyahay $300 maanta awood aan ku taga xataa ma hayo wiilaa iga dhaqo oo ii yimaado dhowr mar deriska $1 isku ka dareen $5 loo tuura waa nooy waa ii yimaada waa iga dhaqaa sida daabeen hor camal dhowr mar oo dhakhtarka u tag yaan dhakhtarka laba ma ugu tagi kari يعني بابوركي قرشكي وحين كنت جاين ما يستوي إلى إلو السجد ده أنت كان حاسلي أما يعني تدبر هذا قصة ما كنت تستحمل هذا جيفتي أما كقول لك وحولي كلها وإسبتال كويشين كويال فرع الله بوا سجاشن إيه تدواتني يلح صدن إيشن فريق الله سجاشن إيه تدواتني يلح صدن إيشن